waxyaabaha caqabadaha dalkeena haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaalad oo dhowr jeer lagu soo celceliyo iyo waxa aan u naqaano awood qaybsiga oo runtii markii laga hadlayo dawlad wanaag marka laga hadlayo meel ay ka soo gali karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meesha ka soo gali karto meel ay ka soo gali karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeena runtii uu noqdo wadamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeenu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano sidee wax ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan galaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tii yaan galaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinka aan qabno waxa weeye dhaqan xumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaan mucaarad iyo waxa loo yaqaan dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fikrad wanaado qof walba ra'yigiisa soo jeediyo uu ka hadlo program iyo agenda una sheego solution xalkiina uu ku daro uu yiraahdo مثلا dawladdu programyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solution xalkuna waa 1 iyo 2 iyo 3 taasi ma aha mucaarad ma aha waa qof doonaya oo constructive ah oo doonaya inuu dawladnimada maxaan ku gacan ka geysto dhismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlaayo dawladnimada dhan in geedka jirida loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qalaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dawladda dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta